ka dhegayso Star FM deegaankaada degmada aad ku nooshahay ama guud ahaan dalka iyo dibadda. muqdisho 97.0 megahertz, beledweyne 89.0 megahertz, dobley 89.5 megahertz, balad xaawo iyo mandheera 92.3 megahertz, faydhabo 89.8 megahertz, jowhar 89.9 megahertz, gurceel iyo dhuusamareeb 89.5 megahertz, luuq 99.9 megahertz, kismaayo 89.5 megahertz, gaalkacyo 87.7 megahertz, cadaado 87.7 megahertz, garbaharri 89.0 megahertz. si aad u hesho macluumaad ku saabsan deegaankaaga, gobolkaaga iyo guud ahaan geyiga, geyso mawjadda Star FM oo la soco warar hufan, barnaamijyo tayaysan iyo xogo ku xiisa geliya. Star FM idaacadaada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناكسان وراديو ستار كسو دوادا قضبادا وركان عاوة إذن ديارنا وحانا كمدا. دولة الصوماليا وركسو صارتي قرحي مانتا كدعي ديغان كحاو عبدي مقديشو ماموركا اسبيتالكا مدينة أو فافاهين كبحيي داوع هي دمشالة سو غارسية اسبيتالكا قدومي واحد كترسان ماموركا دقمدا الديني لأو حاسكيسا أي كود شي من دي رئيس الوزراء خيري oo amar ku bixiyay in gargaar caafimaad la gaarsiiyo gobolada dalka xilli ay ka taagan yihiin qaafista cudurka COVID-19 maamulka galmudug oo shaaciyay kiisas cusub dad uu soo ritay cudurka COVID-19 dawladda Turkiga oo si kulul u cambaaraysay dil wadareedkii ka dhacay deegaanka Gololey ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dab xoogan oo ka dhashay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida dibaddana waxaad ku maqli doontaan digniino laga soo saaray dibadbaxyo weli ka sii soconaya Mareykanka. markale habeen wanaagsan waa axad isniin ay soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 31 May sanada 2020 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Maxamed Abuukar Cabdi Xasan ayaa farsamada ku jira, Cabduqaadir Qoslaaye ayaa waramaya. aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay qaraxii maanta ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka Muqdisho. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxaa looga hadlay musiibadii maanta ka dhacday degmada deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka Muqdisho. qoraalkan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa looga tacsiideeyay dadkii ku dhintay qaraxaasi, waxaana wasaaraddu ay ku eedeysay in ay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab oo mararka qaar weerar qaraxyo ah la beegsada ciidamada dowladda inta u dhaxaysa dhabaha Muqdisho iyo Afgooye. sidoo kale wasaaradda warfaafinta waxa ay shaacisay in ay ka adkaan doonto Al-Shabaab dagaalka ay kula jirto, waa sida lagu xusay qoraalka iyadoo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed. qaraxii ka dhacay agaarka isbitaalka Xaawo Cabdi ee deegaanka Lafoole Muqdisho ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 ruux halka tiro inta la eg ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, inkastoo dhinaca kale aysan wax wara ka soo bixin dhanka ururka Al-Shabaab ee ku aadan qaraxii maanta ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka Muqdisho. isla wararkii qaraxa ayaanu ku gudi jirnay. maamulka isbitaalka Madiina ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaawaca iyo dhimashada la soo gaarsiiyay isbitaalka oo ku aadan qaraxii maanta ka dhacay duleedka Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyay 15 ruux oo rayda ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaaray xilli ay saarnaayeen gaari hoomey oo ay Soomaalidu u taqaano caasi kadib markii ay la qaraxday miinada nuuca dhulka lagu aaso
iyagoo marayay deegaanka xaawo cabdi ee duleedka muqdisho. dhaawaca iyo dhimashada ka dhashay qaraxaasi ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. qofkan oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay musiibadii maanta dhacday, inkastoo ay ahayn xaalad uu qofka ku warrami karo, hase yeeshee waxa uu si kooban u sheegay sida ay wax u dhaceen. gaari BL oo ahay aan famil ahaan waxaan anaga 12 ruux 12 ruux marka sida ka war haay laba qofood oo familkii kamid ah ku geeriyootay meeshaas iyo dadka kale oo familkii kamid ah ku dhaawacmay. aniga waxa kamid ah ku dhaawacyada fudud soo gaaray qarax meeshan ay asiibeen laakiin gaariga ka dhacay oo maadaama kala go'ay dhaawacay laamiga iyo xoqay kaliya diimadaasiti. Dr. Maxamed Yuusuf oo ah agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in isbitaalka la soo gaarsiiyey meedadka 6 ruux 7 dhaawac oo 2 ka mid ah xaaladoodu ay adag tahay. maanta xogaa waxa waaye sidii maalmo aan soo dhaafi jirnay arrintan oo kale ay dhici jirto kale ayaa dhacday. baryahan waa caymanay hal ama 2 iyo dhaawac waxaas noo imaanayay. maanta qaraxii dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux. 13ka 7 dhaawac ay ahayd oo yani badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen. saaladan u tagnay waa xilinay waa daaweynay. 6na waxaana la kugu keenay mid. marka tirada guud waxa waaye 7 dhaawaca iyo 6 meed ah. intaas waa maanta wixii aan la kulannay. marka 7daas dhaawaca waan ka shaqaynaynaa. yani waxaan rajaynaynaa inay noo caafimaadaan. 2 jirto oo xoogaa koomo ku jirto oo madaxa xoogaa dhaawac culus ka gaaray, ayagana waa ku tacaalaynaa maaragtay. waa mahadsantiin. inta badan shacabka isaga kala goosha dhabaha xiriiriya Muqdisho iyo Afgooy ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan, sida inay la kowsadaan qaraxyo aasan, isku dhacyada ciidamada dawladda iyo dhac bareera oo loo geysto gawaarida iyo rakaabka saaran. sida faafahinta warkan ay ku eegeyso wariyaheena Anisa Cabdicasiis Xuseen Honasti ee ku aadan gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa xaaskiisa ay ku dishay mindi kadib markii ay maseertay. wararka naga soo gaaraya degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka degmada ay xaaskiisa ay ku dishay halkaasi. Allah u naxariistee marxuumka la dilay ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Cabduqaadir Foldib. wararka ayaa sheegaya in xaaskiisii ay ka masiirtay booqasho uu ninkeeda uu ku tagay xaas ay kala tageen oo u heysay caruur. gudoomiyaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa gudoomiyaha waaxda halgan oo ka tirsan waaxaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir. waxa uuna ugu dambeyn uu u geeriyooday dhaawac ay xaaskiisii ugu geysatay Toorey. madasha xisbiyada qaran ayaa war ka soo saaray hadalkii dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo uu gudoomiyaha ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay hadalkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa doorashada, isla markaana uu ra'iisul wasaare Khayre sheegay in doorashada ay ku dhaceyso waqtigeeda. sidoo kale waxay madashu dawladda ugu baaqeen inay ka dhabeeyso hadalkaasi isla markaana ay aqbasho qabashada shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxay sidoo kale ugu baaqeen dawladda Soomaaliya in ay cadeyso maqaamka gobolka Banaadir. ugu dambeyn qoraalkan ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale laga xusay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta laga doonayay in ay u diyaar noqdaan doorasho ku dhacda waqtigii loogu talagalay. dhinaca kalena ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa amar ku bixiyay in gargaar caafimaad la gaarsiiyo gobolada dalka oo uu si ba'an u saameeyay cudurka COVID-19. mar kale Anisa Cabdicasiis Xuseen ayaa faafahinta warkan inoo haysa.
xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shirka guddiga qaran ee xakameynta faafitaanka xanuunka safmarka ee COVID-19. shirka ayaa ahaa mid ku qabsoomay habka muuqaalka ee internetka waxaana shirka alaaba looga hadlaa arrimaha caafimaadka ee la xiriira xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay caalamka oo idil iyadoona xalay shirka looga hadlay arrimaha caafimaadka ee ku aadan xanuunka COVID-19 ee ku sii faafaya gobolada dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya xasan cali kheyre ayaa amar ku bixiyay in gargaar caafimaad oo dheeraad ah si degdeg ah loo gaarsiiyo gobolada dalka si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay horay gurmad caafimaad oo kala duwan gaarsiisay gobolada dalka oo ay ka mid yihiin Cadaado, Kismaayo, Jowhar, magaalada Garowe iyo deegaano kale kuwaasi oo laga helay kiisaska xanuunka COVID-19. xanuunka coronavirus ayaa Soomaaliya waxaa laga diiwaan galiyay 1916 xaaladood oo ah dadka laga helay xanuunka COVID-19 iyadoona xanuunkan ay ka bogsatay 327 halka ay u dhinteen 73 ruux. maamulka galmudug ayaa shaaciyay kiisas cusub dad uu soo ritay cudurka COVID-19. cabdiraxmaan ibraahim aadan ayaa faahfaahinaya warkan. wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka galmudug ayaa shaacisay inay bilowday baaritaano la xiriira dadka looga shaki qabo xanuunka COVID-19 ee ku sugan deegaanada maamulka galmudug. wasiirka wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay baareen 110 ruux oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Cadaado islamarkaana looga shakinsanaa in ay qabaan xanuunka COVID-19 balse natiijadii kasoo baxday baaritaanka dadkii lagu sameeyey ayaa waxaa laga helay xanuunka 47 qof oo ka mid ah dadkii la baaray kuwaasi oo haatan ku sugan xaalad karantiil ah. wasiirka ayaana waxa uu intaasi hadalkiisa uu ku daray in dhammaan deegaanada galmudug cudurku uu aada ugu sii faafayo islamarkaana dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay soo gaarsiiso deegaanada maamulka galmudug gurmad caafimaad. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd. caawa waxaan shirkan jiraad u qabanaynaa arrin ku saabsan xanuunka runtii adduunka halakeeyey ee COVID-19 oo galmudugna si ba-an ugu jira. waxaad la socotaan magaalada Cadaado oo runtii meelaha ugu daran uu yahay in maalin dhoweed qayladhaanteeni dowladda dhexe ay kasoo jawaabtay oo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiirba ay soo dirtay. dhaqaatiirtii baaritaan degdeg ah oo maxaa la dhahay guud ayay sameeyeen. waxaa la baaray 110 qof oo runtii u badan dadkii meelaha publica imaanayay oo weliba aan ahayn dadkii guryaha ku xanuunsanaay. 110kaas qof 47 qof oo ka mid ah waxay noqdeen positive oo cudurka ayaa laga helay. taas macnaheedu waxa waaye in aad runtii cudurku uu ugu jiro galmudug. 47 qof 41 ka mid ah waa rag, 6 qof oo ka midana waa dumar. tirada guud oo galmudug cudurka ilaa hadda laga helay oo lab test la marsiiyey waa 61 qof. sidaas darteed waxaan rabnaa anagoo fursaddan ka faa'iidaysanayna inaan mar kale iyo mar kaleba aan codsanno oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo cid kasta oo galmudug ka caawin karta in la helo lab test in la helo oo runtii ay noo fududaato markaas in baaritaano la sameeyo. waxaan aaminsanahay haddii baaritaankaas xawliga ahay oo 110 qof hal mar la baaray meelo badan runtii laga sameey lahay oo ay stateku u haysan lahay lab test haysan lahay in ogaanshaha la ogaanayo inta qof oo cudurku soo ritay ay intaan runtii kasii badnaan lahayd, xog badanna laga heli lahay, taxadarka iyo feejignaantuna inta ka badnaan lahayd. sidaas darteed arrintaas waan cuslaynaynaa. midda labaadna waxaan rabnaa inaan sheegno dhammaan dadkaas 110 qof oo la baaritaanka lagu sameeyey waxay dhammaantood ahaayeen reer Cadaadi ahaayeen. waa dareemi kartaa marka maadaama galmudug oo dhan isku furan tahay dadkuna sidaan horey in badan u sheegnay ay dhammaantood wada sheeganayaan oo xanuunka iyo calaamadihiisa laga wada qaylinayo in maaragtay degmooyinka dhan iyo baaxadda dhulka galmudug ay ku fadhida u leegyahay ay cudurka oo si baan ugu jiro waa caddahay. run ahaantii waxaan rabnaa marka ummadda reer galmudug inaan uga digno inaan ku baraarujino runtii inay
qaataan u dhaganuglaadaan tilmaamaha caafimaadka ama fariimaha caafimaadka ee dhakhaatiirtu bixinayaan oo cudurkan si seriousa loo qaato oo dhab loo qaato oo la taxadaro. cudurkaanu runtii ma lahan daawo, ma lahan ka hortag ayuu leeyahay. ka hortagiisuna waxa waaye in qofku marka hore uu feejignaado. qof kastoo cudurkaas ama iskaga shakiya ama maxaa la dhahayaa xanuun dareemana oo gurigiisa runtii isbaara marka hore gurigiisa isku karantiilo, dadkiisa ehelkiisana uu ka ilaaliyo. weliba dhallinyarada waxaan ka codsanaynaa inay u naxaan dadka waayeelka ah oo guryaha jooga oo runtii la sheego cudurka inay aad ugu nugul yihiin ama dadka xanuunada qaba. intaas ayaan rabnay inaan runtii aan ku celcelinno oo arrintaas wacyigelinta xoogga la saaro. waxaan rajaynaynaa inaan cudurkan dhab u qaadanno. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu cudurkan naga dulqaado guud ahaan soomaaliya oo dhan. maxaa la adduunka oo dhanna runtii problemkiisa ilaahay uu naga fududeeyo. dhammaanteena waxaa noo ballama inaan feejignaano, inaan taxadirno, inaan u hoggaansanno fariimaha wacyigelinta ee caafimaadka, in mas-uuliyadda qof kasta iska saaro naftiisana ka bilaabo sidii cudurkan looga hortegi lahaa. si kastaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay wax uu amray in gargaar caafimaad la gaarsiinayo qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliya oo uu ku baahayo xanuunka covid-19. sida warkan uu dowlad deegaanka soomaalida inooga soo diray waryaheena siyaad heer sare kuna aadan dab xoogan oo ka dhashay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada Jigjiga ee deegaanada Soomaali galbeed. dabkan ayaa kacay xilli ay saacadu ahayd 2 habeenimo dadkana ay guryahooda hurdayeen. waxa uu qabsaday dabkan goob meherad ganacsi ah. Axmed Rashiid Khaliif waa milkiilaha goobtan ganacsi ee uu dabka baabi'iyay. waxa uu inooga warramayaa dabkan iyo waxyaabaha uu isleeyahay waa uu sababay. dabkii holaciyo aad u kacay markaan soo toosay oo aan booday waan ku yara khalkhalay. waxa igu yara adkaatay bixitaankii iyo inaan albaabkii iska furi iyo waxaas way igu yara adkaatay. laakiin adigu alxamdulillah waan baxay. isla markiiba ciidan baa isoo gaaray oo dhowr nin oo ciidan oo layu boolisaba markiiba isoo gaaray. xabaday rideen aniga oo markaas ku fakaraya inaan wuxuun badbaadiyo. dabkuna aad iyo aad u holac badan yahay. ciidankii baa iga qabtay oo yidhi war ka joog meeshu waa halis bay kugu keeni kartaa oo iga saaray. xabaday rideen oo dadkii way isu soo wada baxeen. way yimaadeen qolada dabdamisku way yimaadeen laakiin waqti aan waxba la badbaadin karin bay ahayd. marka adigu gurmadgu yimi laakiin may suuro gelin in wax ka mida la badbaadiyo. qolada dabdamisku waxay ku guulaysatay inay dabkii xakamayso oo inuu dhinacyada u faafo ay ka adkaato laakiin way suuro geli weyday inay wax meeshii ka mida badbaadiyaan. laakiin markii aan eego qaabkii ay wax u dhacayeen waxaad moodaysay inuu wax uu yahay ay dad sababeen. marka aan ka soo qaado in habeenkii ka horreey laba habeen ka hor la igu soo jabiyay meesha anoo gudaha ku jira oo aan markaasi ninka jiingada gale ee jaarka u yeedhay oo aan markaasi tuugtii sidaa kaga badbaadnay. habeen labaadkii oo iyadana ahayd in la igu soo garaacay oo waxoogaa aan markaa u arkay wax doonaya inaan bannaanka u soo baxo inay ahaayeen. sidaasoo kale habeen saddexaadkii waa habeenka uu markaasi dab ku dhacay. imay suuro gelin inaan ribood geeyo oo aan xafiisyada ay qusaysay ee nabadgelyada aan geeyo. fiilooyinka xarkaha korontada oo inta badan iskor saaran iyo heerka ka taxadarka oo ah mid aad u hooseeya ayaa inta badan soo celceliya dab khasaare badan geysta iyadoo ay yar tahay casharada ay bulshadu ka bartaan. siyaad bashiicsanaysiyaad heer sare idaacadda Star FM magaalada Jigjiga. ugu dambeynna dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaaraysay dilwadareed ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan ayaa mar kale faahfaahinaya warkan. dowladda Turkiga ayaa waxa ay si kulul u cambaaraysay dhacdadii naxdinta lahayd ee maalmo ka hor lagu dilay 8 dhalinyaro dhaqaatiir caafimaad ah oo ka shaqeynaysay xarunta caafimaadka MCH-ka deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in ay xukuumadda Ankara ay aad uga xun tahay falkaasi lagu dilay dhalinyarada iyagoona ku tilmaamay in uu ahaa falkaasi mid bahalnimo ah oo lagu xasuuqay dad shacab ah. sidoo kale Turkiga ayaa tacsi u diray ehelada dadkii shacabka ahaa ee lagu dilay deegaanka Gololey iyo dowladda federaalka Soomaaliya. wax uuna Turkiga dhalinyaradaasi alla uga bariyay in uu jannada ka waraabiyo. warka qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa waxa lagu yiri
waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa falkaasi bahalnimada ah waxaana u tacsiyadaynaynaa walaalaha soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana alla uga baryaynaa in marxuumiintaasi uu ka waraabiyo naxariistiisa ilaa iyo haatan ma jirto cid si rasmi ah loogu soo qabtay falkaasi inay ku lug laheeday balse waxaa socda baaritaano dhowr ah oo ay samaynayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabelle guud ahaan warkii habeen oad kala socoteen raadiyo star studio muqdisho waa naga intaa ciddii uu sagase waxay dib uga heli karaan bogga internetka aan ku leenahay safm somalia.com maqal qoraal sawir aan ka marnayn maxamed abuukar ayaa farsamada ku jira cabdiqaadir ayaa tibinaya ka horse nabad iyo warsan habeen wanaagsan jiritaanka nolosha ee noolo walba waxaa muhiim u ah helidda nabad sal adag leh oo uu ku noolaado marka se loo yimaado aadmiga oo ah kan ugu wanaagsan ee sankuneeflaha uunka waa kan ugu sii mudan inuu helo nabad waarta waa tan afmaalkii hore ee soomaalidu ay horay u yidhaahdeen nabaddu waa hoyga baraaraha iyo gunta barwaaqada